in Hargeysa joogta maaragtay. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. Halkani waa Cokar TV. Cokar TV maanta waxaa matiyuga xaji cumar ibraahim. Xaji cumar ibraahim kusoo dhawow idaacadda Cokar TV iyo barnaamijkeena maanta aan ku falaqayn doono siyaasadda geeska Afrika. waa dhawahay maxamed waa mahadsantahayna dhammaanna dadweynaha ku xidhan Cokar TV waxaan leeyahay ciid wanaagsan maalin wanaagsan ilaahay khayr ana waafajo rabadaankii uu noo dhammaaday dembigeena Allah dhaafo dhammaan inta ku xidhanna asalaamu calaykum alle aad iyo aad baad u mahadsan tahay xaji ibraahim. waxaan salaamayna sidoo kale dadweynaha sharafta leh nagu xiran eena daawanaya meel kastay joogaanba waad salaamantihiin. xaji cumar waxaan ku horeynaynaa ku falaqaynaynaa siyaasadda Jabuuti ninkii dictatorka ahaa in Cumar Gele kolba dhaantii kasii dambaysa uu kasii daraya wadankii wuxuu kusoo dhaweeyey nin dictator oo sidiisa uu dhigi caba oo maaragtay masriya oo dadkii masaarida laayay oo dictator saga ka daraya ayuu soo dhaweeyey. siyaasadda uu uga jeedo ninkaas uu dhaweysta uu soo dhaweeyey maxay ku saabsan tahay? waad mahadsantahay maxamedow walaac badan baan ka muujinaynaa Sisi oo nin cadowa oo ninkii xisbigii la doortay electionkii markii isbedelku dhacay 2011kii wadanka Egypt electionkii dhacay oo nin dimuqraadiya lagu doortay Maxamed Mursi ninkii dilay isaguna khaayin buu ahaa oo oday weyn baa ka sareeyay ciidanka ninkaaba soo ka dhigay jarnaarka ciidanka ugu sareeyay markii ninkii darajada siiyay ayuu dilay ninka waa nin dhiig gacmaha ku sito Ismaaciil ka daran wadanka Jabuutina iyo nabadda yarag inta leegna inuu dab geliyo ayuu yimid baan u malaynayaa waana falaqayn doonaa. waayahay marxaba. in Cumar Gele ma wuxuu isleeyahay ku xumee siyaasadda isku hayaan geeska Afrika farmaajo coalitionka ay samaysteen farmaajo iyo Abiy Ahmed iyo Asias Afwerki ma wuxuu leeyahay ku xumee saddexdaa coalition maaragtay wadan isaguna waa kan la xidhan ognahay inuu la xidhay Uhuru Kenyatta oo ah cadowga maaragtay Soomaalida oo doonaya inuu dhulka Soomaalida boobo. ma siyaasadiisu waxay ujeedaan inuu ku xumeeyo Abiy Ahmed iyo farmaajo? waad mahadsantahay maxamedow siyaasadda adduunka waxaa la yidhaha siyaasaddu saaxiib male ee danaysi weey. Ismaaciil markii Abiy u yimiday kolkay kulmeen coalitionka loola yimiday wuxuu yidhi coalitionka iyaa wada Abiy baa ka madaxa qofka labaadna waa Fay Warqo iyo Farmaajo wuxuu yidhi haddaanan anigu maamulayn oon anigu coalitionkiina aan anigu madax ka ahayn anu siyaasi rugacdaan oo inigoo ciyaaloon nima raac ayuu yidhi uu ka diiday. maanta wuxuu u arkay Farmaajo koos baxay Fay Warqo markii horeba isku diideen
dowladda Itoobiya oo maslaxad ganacsi iyo nolol ahaanba shacabka Jabuuti ku xidhan yahay wuxuu u arkay iminka inay kala daadanayso Egyptina ay waxay yihiin col xagga Suudaan webiga ayay Egyptina kala qaatay kolka Egypti waxay aragtay Ismaaciil oo cidlo jooga inay isaga la soo jiito oo la yiraahdo baysna nasi meeshan haddii Masar iyo Itoobiya dagaal ka dhaco meeshan ka duulaynaa noo noqoto marka iminka diyaaradda ayaantii dhaw isaga siday waxaa la noo sheegay 2 diyaaradood baa daba socday joornaal waan ka aqriyay 2 diyaaradood daba socday mid military bay siday midna waxay siday agab dawooyin iyo lacag iyo raashin marka Ismaaciil meeshii lacag loogu ballan qaado isagu shaqadiisa ma wadananimo iyo wadankan long term mustaqbalkiisa ma eego waxaas halkaa ka soo baxday inaa Egypt la doonayo inaa base u siiyo inaa haddii dagaal dhaco halkaas laga weeraro waxa kaluu sheegay Egypt madaxweyneegu inuu dhakhtar dhisayo Freeport in laga siiyo warshadaha Egypt madaxdooda ay soo saaraan si geeska Afrika ay ugu dhawaato inaa meel laga siiyaa alaabaha Egypt lagu gado marka Ismaaciil markuu ba arkayba dhakhtarna waan ku dhisi dhulna aysiin meel aan ku shaqaysto lacagta mushtariga laga helayana sheer baad leedahay baa lagu yiri ilaa isagu waa nin dilaal uu joogo leefkiisa marka arrimaha aynkaas meesha dhex maraya waana isku wada geeyo wuxuu ka arkay maanta meel yar uu isagu liid ka noqdo ayuu ka arkay مرحبا وهجاج وسيدة تاي إن عمر جيل ماشوا لفلف كهلا يوم بدواء عمدا إن بوليتيكي سيبوا نقضي العقل كيد كاشا الكي واحد كدي لاشا الكي واحد كد عضاء يبوا نقضي بوليتيكي سيني كايدي لو غدن كمارك تي جبوتي دوني إنه هجاميو تشانس راقلة إن واي هاي إن وهجاج إن بوليتيكي جبوتي تاسكو دافنا إن وحنوجد بينا هالكا إيو سومالي لاند بنوجد بينا laga yaabo marka dambe inaan kusoo yar noqono bolitiga Djibouti oo wax yar ka taataabano sidii maaragtay xukuumadda ugu soo dhisay ayaan yar taataaban doonaa marka dambe gadaal baan ayaan ka sheegi doonaa wixii maaragtay uu sameeyey xaji cumar waxaa ka socdaa campaign baa ka socdaa foodkii baarlamaanka Somaliland baa soo dhow foodkaasi siduu u socdaa habkeebuu u socdaa habkeebaa kuraasida maaragtay loo kala qaybsanayaa halka Somaliland waayahay in yar waxaan ku daaray videoga Musabix waxaan ku xijisiinay ra'iisul wasaare ku-xigeenka oo isaaqo ka soo jeeda kadibna sawirada iyo waxaan macnayn doonaa electionka beesha ciise halka ay kaga jirto marka baliikaada ay kow hadday deeqo wax tarayso hadday lacag wax tarayso hadday ciidamada ajir wax tarayaan haddii dawladda soo wax tarayaan dawladda mushakil sameeyay soddon sano ayaa lagu xijaa waxaan qabaa hadday kaliya tala gaar lahaayeen inay kor u gaarnaayeen okay kay waa Musabixi marka ra'iisul wasaare ku-xigeenka oo hadlaya yaan halkan ku hayaa isagana oo taliyad u diraya electionka waxaan rabaa inaan munaasabadan uga faa'iideysto inaan u hambaliyeeyo shacabweynaha Somaliland maalinta doorashada 31 May uguna hambaliyeeyo sida dulqaadka ilbaxnimada iyo ay aragnimadu ku jirto wala maqla Soomaa soo dareereen si fiican in doorasho xor ah oo xalaal ah oo tartan furan uu ku jiro ay ka wada qayb qaataan oo ku aadan doorashada 31 May baarlamaanka ay ugu dareerayaan in ay si xor ah oo xalaal codkooda ugu codayaan musharaxa ay isleeyihiin mas'uuliyaddu qaadi karaa xilku waa dhibayaa hadday tahay golaha deegaanka bulshadii waa u adeegaya hadday tahay golaha wakiiladana waajibaadkii sharci dejineed ee saarnaa waa uu gudanaya waa ilbaxnimo iyo xadaarad in maanta horumarka weyn 20 sanadood ee u dambeeyay ay doorashooyinka dimuqraadiyadeed ka jireen Somaliland ay 1 milyan oo qof ka badan
ku dhawaad 1,100,000 qof ay u dareerayaan inay codkooda dhiibtaan si xor uga qayb qaataan 246 xildhibaano u tartamayaan saddexda xisbi ka kala sharaxani doorashada golaha wakiilada 521 xildhibaano golayaasha deegaanka ay u ordayaan oo ilaa 767 musharax ay ka qayb qaadan doonaan ku dhawaad 3,000 oo goobood oo codbixineedna ay ka dhacayso doorashadu 23 oo kamid ah 22 qiyaastii ayna ka dhici doonto waxaan leeyahay nabad ku codeeya isu dulqaata doorashadu waxay wax u tartaan nabadda is ogolaanshaha is aqbalaada iyo qofku dareenkiisa iyo fikirkiisa inuu si xor ah u dhiibto uguna cabiro sanduuqa codbixinta mas'uulka uu isleeyahay wiilal iyo gabdhaba waa uu xaalad jirta ka saari karaa deegaankiisa ku matali karaa dadka codbixiyayaasha ee uu matalo waa horumar weyn oo laga gaadhay dhinaca dimuqraadiyadeynta iyo doorashooyinka oo aan anigu ilaa 2017 horraantiisii ka shaqaynayay waayo aragna aan u ahay qaybna ka soo ahaa dariiqa dheer ee dimuqraadiyadeynta iyo doorashooyinka ay Somaliland ku caanamashay walaalaha koonfureed waxaan ugu baaqayaa inay cashar ka bartaan sida xorta oo xalaasha taas waa sida ra'iisul wasaaruhu wuxuu ku soo gabagabeeyay walaalaha koonfureed waa inay cashar ka bartaan wuxuuna ahaan jiray 2013kii xisbi ayuu isagu lahaa xisbiyadii taratanka badnaa ee dhowr iyo 20ka ayuu kamid ahaa imikana muqdisho ayuu yahay ra'iisul wasaare ku-xigeen uuna ku matala beelaha halkaa degan waayahay waxa weeyaan electionkani geeska africa hadday jabuuti tahay hadday etoobiya tahay hadday soomaaliya tahay xataa kenya dimuqraadiyadda sidaa loo dooranayo wax lamida ma jiro marka waxaa yimid observerka yurub oo dhan maraykan dowladihii waaweynaabaa kasoo qayb galay kharashkana siinaya somaliland maadaama oo si xurriyada loo dooranayo dadka maxaa noogu jira haddaanay beesha ciise waayahay beesha ciise waxaa noogu jira xildhibaano dhalinyar ah oo fara badan waxa weeyaan 19 xildhibaan ayaa beesha ciise ugu jira 5 waa golaha sharci dejinta ee Hargeysa 5 waxaa soo haray 14 ka 9 golaha degmada Saylac ayay u taagan yihiin 5 waxay u taagan yihiin golaha degmada Lugaya sawiradoodana qayb yar kooban baan ku soo qaaday Faysal Atora iyo waan ku soo qaaday Cigaal Maxamed Cigaal iyo Maxamed Daahir midna Lugayo ka sharaxay yahay golaha federaalka midna waa kuwa degmada marka dhalinyar wax baratay mutaalimiina oo da'doodu 50 ilaa 30 u dhaxayso ayaa soo sharaxaya imika dadkii deegaanada xariirad iyo Saylac iyo Toqolshi iyo Lugayo iyo Jiri iyo buto iyo Kobaabur wata ay meelaha deegaanadii ay deganaayeen ka yimaadeen foodkaana waa u diyaar marka insha Allah waxaan ku waarignaa si nadiif ah in loo doorto kii laga badiyo taratanka inuu u hambaliyo ka badiyna inuu si nadiif ah ka laga badiyo u hambaliyo marka si xurriyatal qawla oo fiican inay u dhacdo sambalna u noqoto geeska Afrika aan ka qaybna oo inkasta oo liidka iyo madaxda sare aan ku jirno golaha sharci dejinta Hargeysana Abdi Saciid Faahiye oo isagu haddii la doorto noqon doona gudoomiye ku-xigeenka labaad oo isu waligii haysan jiray isagana waan u hambaleynaa geeshaadan bile iyo wixii kale soo baxa iyagana waan sii hambaleynaynaa dadaalkana halka ka wada laakiin aan noqonina raggii raraacunka noqday ciise ee hadday Jabuuti tahay hadday Itoobiya tahay iyo hadday gobolka Salal iyo awdal kuwii hore tahayba aanan u shaqaynayn degmooyinkooga oo marka la doorto Hargeysa ama Saylac iska fadhiisanaya ee waxaan naga rabnaa inaa scholarship carruurta u soo heshaan inaad dhakhtarada hagaajisaan inaad caafimaadka hagaajisaan inaad tacliinta hagaajisaan inaad xaq waxaan leenahay hay'adaha Itoobiya
hay-aday ku socotaa somaliland hay-adaha ina saylac xariirad jiri cabdiqaadir lugahaya la keeno oo dadaalkaa muujisaan ayaan ku waaninayna halkaasa kaga baxay maxamed loog baa ku jirta loog ma ku maqleen ها صح واي وما تصنتها حاج عمر ان فوت كان كسعودة سوماليلاند ما كي برلمان كا مسواكي قبلدا هوسي دولدا هوسي قبلدا اللورني waxaa la yidhaahdaa election mataana ah oo isa saaran baarlamanka hargeysa oo 81 xildhibaana oo beelaha gadabursi ciise isaaq dhulmaante warsangeri shanta beelood ka kooban inkastoo isaaqu bursaday uu badan yahay 26 ayaa 4 beelood oo kale leeyihiin isaaquna 5 waana 81 taas waa loo footeynaya meel kastana maayaradii iyo qolihii deegaanka ayuu foodka labaadna oo warqad laba la siinaya qof kasta laba food buu footeynaya waayahay in voodkaasi ma u dhaci doonaa si daacada mise waxaa ima doonta maaragtay tuugo iyo musuq maasuq iyana wax lasdaba dhaafiyo mise waxa weeyaan waa vood daacadoo si daacad u dhacaya oo ka duwan kan jabuuti ka dhacay aanu ognahay kolley maxamedow 100% jabuuti election kama dhaco xarakaad layska barjeeyo oo toddobaad laysirariyado oo jaadkaana layska cunaa ka dhaca laakiin sidaan ognahay geeska africa etoobiyana election kama dhaco soomaali weynu muqdishona waa kuwa ilaamika laysku haysto laakiin electionka maraykankaba waa laysku qabsadaayo anaa badiyey iyo aniga waa kii donald trump galiyey george bush al gore way isku qabsadeen laakiin somaliland 3 xisbi baa iyaa lab kala socdaa xisbiga talada hayo oo kulmiye leedha wadani oo xisbiga labaada xisbiga saddexaad oo leedha marka beesha ciise 3 xisbi way ka sharaxan yihiin kii soo baxa foodka golaha hargeysa 5,000 baa laga rabaa qofku inuu u footeeyaan golaha degaankana 800 qof ayaa laga rabaa inay qofka u footeeyaan qofkii gaari waaya 5,000 qofkii gaadhay kii la rabay hadduu gaari waayo ka 5,000 gaadha ayaa la siinayaa ka 800 golaha deegaanka saylac example iyo lugayana 14 idnamood baa nooga sharaxan waa 800 markay helaan hadduu mid helo 1,000 qof food 8diisii markuu helo midkii saaxiibkii ahaa iyo 200 dheer siin karaa sidaabaa la isugu caawinayaa marka uma malaynayo siday adeecadaha ka sheegeen somaliland xisbi kasta inuu wakiila u joogo meel kastoo fooda 3 xisbiga muraaqib baa u jooga foodkii dhacay warqadda halkaa lagu dhammeeyo waxaa saxeexaya 3 xisbi waxay u tabinayaan commissionkuna way joogaan meel kasta siday noo sheegeen waa less corruption ayay tahay 100% boqolkii hal xataa uma dhacda election jabuuti ka dhaca sida ay samaynayaan sidii adduunyada lagu samaynayay iyo way egtahay marxaba waxaan arkay videogaad saartay prime ministerka Soomaaliya ka hadlaya foodka Somaliland ka dhacaya maxay berito hore ka dhacaya sababaha uga hadlaya oo leeyahay food baa ka socda Somaliland waxaad isleedahay dowladii Soomaaliya way aqoonsatay inay Somaliland tahay wadan ka gooniya Soomaaliya prime minister ku xigeenka weeyaan ninka waa nin isaaqa ka soo jeeda waqooyi wuxuuna ku metelaa dowladda Somaliland dhalasho ahaan nin ka soo jeeda Hargeysa iyo Somaliland electionka halka ka socda waan hambalyaynayaa buu yiri waxaan ku hambalyaynayaa 20 sanana dhaafay dimuqraadiyad iyo hanaanka dimuqraadiyadda ay Somaliland ku talaabsatay aniguna kamid baan ahaa dadkii dastuurada sameeyay buu yiri marka ra'iisul wasaare inaan kalimaayne maadi guuleed waa ra'iisul wasaare ku xigeen ka soo jeeda galbeedka
Somaliland. waan fahmay laakiin sababaha uu soo hadal qaadayo voodka somaliland had iyo jeer waxaan ogsoonayn inay soomaaliya hadal qaadinba voodadka ka socda somaliland iyo bolitigooga maanta maxaa ku kalifay inay soo hadal qaadaan waxa weeyaan maxamedow waa inaad ogaato dowladda Soomaaliya Muqdisho joogta way u dhan tahay beelihii Soomaali mee koonfur Soomaali oo dhan koonfur iyo waqooyi way u dhan tahay baarlamaanka waa loo dhan yahay dastuurka Soomaaliyana wuxuu dhigayaa Soomaali muramsayla Kenya xuduudka waa la wada leeyahay marka laakiin siyaasadda la isku hayaa maayne la iskuma diidana wadaninimada Soomaalinimada reer Muqdisho laakiin kuwan Hargeysa musabix sidoo afkiisa sheegay hadday lacag wax tari lahayd haddii xeer wax tari lahaa reer Muqdisho u tari lahaa buu leeyahay macnaha annagu dimuqraadiyad baan ku soo baxay foodkan ku helay dadkeena lagu dooranayaa laakiin dimuqraadiyadda Muqdisho kama jirto kolkaas maadi guuleedna wuxuu xoojinayaa dimuqraadiyad baa Somaliland ka jirta laakiin dawlad loo qoonsaday ma aha laakiin dastuurkana waanu aqoonsanahay buu leeyahay marxaba xaaji cumar waxaan ku weydiiyey dalkan somaliland la baxay waa gobol ka go'ay soomaaliya oo ilaa hadda la aqoonsanayn weeyaan laakiin qabiilaa ku nool waddanka qabiilaa ku nool 4 qabiil baa ku nool daarood isaaq shan qabiil baa ku nool daaroodka isaaqa ciisaa gadabursiga iyo gabooyaha marka sidee ku dhacday saddexdii xisbi ee qaran ee waddanka inay qabiil midaata wada xukumaan kuraasadii intuu fiicnaa ay badnaa inay qabiil quraata wada qaataan sidee bay ku dhacday maadaama waddanka la wada leeyahay arrintani markii la sameeyey jabhadihii dagaalamay ee siyad bara la dagaalamay haddii aan u cudurdaaro oo aan iska dhigay waxoogaa lawaanu ahay waana noolayn oo waan jirno waan ogeyn say wax u soconayeen Soomaaliya markay tacadiga ay ku sameeyay Somaliland raggii kacay ee dhiigooga horay ee naftooda horay isaaq way ahaayeen gadabursigu lama socon laakiin ciise waa la socdeen markay asnam soo gashay ayaa isaaqii ay eegeen ciise khiyaanay sameeyeen ciise dowlad buu leeyahay waa Jabuuti gadabursi dowlad ma leh isaaq xaggana iska dhigno gadabursigaan aan xisxijisiino soo qaadana sababtoo dhexdii ciise gadabursiga dhex bay ku jiraan gadabursigu xaggana isaaq baa ka degan xaggana ciise daaroodku waa laba reer waa dhulmaantii warsangari dhinaca Puntland bay xigaan soo marka waxay moodeen ay ka danaysteen gadabursigii waa kuwa madaxweyne ku-xigeenkiisii ciisena xaggana la dhigo Jabuutina xurda ugu qabatay oo waxay Jabuuti qudhadeedu ka baqday haddii ragga ay isu power ku yeeshaan Somaliland SNMT markii dagaalamada hadda ciise la socday ciise hogaaminay ilaa iyo dirdhaba dadaalka la waday markay hubsadeen inay dhulka qabsadeen ciise ba dhinac iska dhigeen samaroon bay soo dhaweysteen saas wax u dhaceen marka sidaa u dhacday ay dowladdii dhisayaan ayay yidhahdeen annaka biyaha kaadi u soo cabnay Somaliland annagaa samaynay beelaha kale laf yar baan ka siinaynaaye dee annaka u dhimano annagaa iskale tii bay laami ku socdaan cadaaladda xaggaa way ka liitaan markaas waxa weeyaan waa khalad anoo saxan u arkayaa sidaas waa khalad waxa lagu xisaabtamaya waa dhul qabiil walba dhul buu leeyahay ilaahay dhulka ilaahay siiyey ayuu ka soo baxayaa intuu doonaa ha leekaado amba ha yaraado amba ha badnaado marka waa inaad dhul lagu qaybsaday ahayd inaan la yaraado kadideeda u soo cabay kuraasadeena lagu qaybsado ma ahayn marka xitaa samaroonka aad leedahay waa la soo dhaweystay laba wasiiro quraatay dowladda ku leeyihiin iyo madaxweyne ku-xigeenka marka sidee baa u ogolaadeen baan anigu ku leeyahay nacam qabiiladani inay qabiil quraato isku fuuqsado wixii kuraasi jiray waddanka wixii xisbi qaran jira oo dhan inay iyaga wada noqdaan sidee u aqbaleen qabiiladan kale maadaama meeshii qabiil walba dhul uu leeyahay oo dhul lagu xisaabtamayo isaaqu waxay ka degaan 3 gobol bay degaan waa burco dhinaca burco iyo dhinaca berbera iyo hargeysa
kumay soorin gobol ahaan kumay soorin ee qabiiladii isaaqa oo 12 loo qaybiyay ayaa reer baa lagu siiyey xildhibaanada kolkaas sababtoo annagaa soo dagaalanayo annaga unbaale iminka 12 ciisiya gadabursa isku haystaan oo baarlamanka iyo 12 warsangariyo dhulmaanta isku haystaan 26 baa laga siiyey 4 qomeedoo kale 50 xildhibaan ayaa haystaa dhinaca dimuqraadiyadda way ka liitaan saama qaybsiga way ka liitaan in badan baa cali galeer iyo professor Samatar baa ku celiyay oo yiri war saama qaybsiga beeriya kuraasidana beeriya sidana wax u qaybsateen wax ka bedela ilaa imika wali ma beddelin taa anaan weyn bay ku leeyihiin laakiin taa aan ku amaanayn waa inta electionka dimuqraadiyadda ee adduunka oo dhan uu ku amaanaya maanta Soomaaliland taa waan ku amaanayna laakiin taa saama qaybsiga waa cunsuriyad xadda bay sameeyeen marxaba waxaan ognahay isaaqa Jabuuti iyagoo dhulba Jabuuti ku lahayn oo la xaafad yar qura ka degan ayaa laba wasiir iyo madax badan la siiyaa oo maaragtay laga qayb geliyaa dowladda maaragtay bartaashka dowladda ciisoo dhul kula halkaa oo dhulkiisu aad u baaxadiisu u weyn tahayna hal wasiiro quraatu leeyahay see ku dhacdaa arrintaas waxay ku dhacdaa isu waa naif kelmad waxay ka dhigan tahay ninka waxba ogeyn ee walaalkaa baan ahay uun odhanaya weelkii uu hayay bay iska wada siinaya walaal jacayl marka isaa imika dhigadheeray ku yimaadeen isaaqa joogi ka ku dhasheen awowgii ama abiiba ku yimiday ganacsi bay furteen waxbay ka dhidhisteen iminka magaalada Jabuuti maayar nin isaaqaa jira maayar waxaa lagu noqdaa sida adduunyada qofka magaalada asliga u leh baadiyahana ka degan ee degaan ahaan dhulka dadkiisu leeyahay kaasaa maayar noqda kaasaa degaan ku noqda marka Jabuuti ciisaha dhoohan oo mid kastaba soo dhaweysta taasaa ku dhacday inaa 9 wasiir la siiyo isaaqa la siiyo gadabursiga la siiyo carab la siiyo meeshana degaan ahaan ciisiya anfar baa iska leh ciisiya anfartibaaba wasiiradii ugu fiicnaa waad arkaysaa ninkan wasiirka tacliinta Mustafa Facebook hargeysa iyo burcu ka soo quraa scholarship caruurta dhulka u dira dowladdan Ismaaciil Umar Geelana ma kala jeclaa dadkoogii iyo dadka kale ajnabi ma kala jecla ninkii xuquuqdaada soo qabanayay ee dowladda kuguma jiro dowlad qowlaysataa oo lacag u raadinaysa weeyaan maamulka Jabuuti ma wadanimo male marka waxaad leedahay wadanimadii baa ka maqan ciisaha oo wadanimadii bay iska tuureen halkii dadka kale ee Soomaalida qabiilooyinka kale Soomaalida ku xisaabtamayaan qabiilnimo iyo soo dhaweys iyagu isku taageersanayaan waxa leedahay ciisita dhinac buu iska dhigay aad bay u liitaan wadanimada ku liitaan waxay ugu liitaanna saambal yaroo dhib yar baan ku siin waxa weeyaan wasiirka ninka Axmed Shire ee wasiirka bulshada hadday gabadh ciise u tagto oo tiraahdo war jaamacad baan ka soo baxay qaado koofigano marka hadday tiraahdo jaamacad baan ka soo baxay dibloomka ma sita shaqaysi wala ma ciise ka tahay buu leeyahay wasiir anfari hadday gabadh u tagto gabadh anfariyadii ama ninka Mustafa Facebook ee isaaq gabadh isaaq oo dibloom sita hadday u tagto gurigeegay horta ugu tagaysa gurigiisa xagga oo lagu soo dhamaynayaaba loo islama bay imanaya xafiiski warqadi waa loo dhamay proof baan hayataa inay isaaqu majliska shaqada lagu soo qoro ee wasiirada anfartu majliskooga dadka ku soo qoran kuwa ciisana ay caruurta ciisaha iska fogaanayna qoladayda matida socod ka yidhahdeen ciisanimada horta way ka tageen ka fuurlabe ka Sacad Muuse ka Yooni Muuse ka Horone waxa bay faraha ku fiiqaan kolkaad u tagtana igu soo noqo bari igu soo noqo waliba heer waxay gaadhay inay gabdhaha kii ay ka helaan ay jirkeeda ku qabsadaan yidhaahdeen radafuur ii qaba aawan ku arkay marka ragga ciise aad bay u liitaa wadanimana male shakhsiyadna male aad bay canaan Jabuuti wararkan ka helayno waa dadka ugu liita laakiin Mustafa Facebook
wuxuu wada qoraa macallimiinta wuxuu wada qoraa iskoolashyada dadkiisa wasiirada canfartuna waa saas leh ciisuhuna waa dad dhintay oo damiir lahayn oo isagu inuu wax una doonaya dan ka gelayn dadka ciisanimadiina xaggooga maba jirtaba marka waxaad leedahay waxay ka baqayaan caaqan dictatorka meesha fadhiya cabsida isaga ka qabaan ba waxaaba u sameynayaan no iyagaa ragaynimo lahayn muu mustafa facebook oo gadheeraha bii ku yimiday mu ka boqo muu canfariga tajooriyo ka yimiday mu ka boqo casmare ka yimiday mu ka boqo ragaynimay doontee karti ragga ciise shaqada ma loo dhiibo shaqadaydaan ilaashanaya anigu qabiil waxbay kama gelin lacagta yar baa layga goyni baabuurkaa yarayo jannadaa lay geliyey ma rabe mid baa nagu yidhi wallaahi bilaahi maxamedow berigii 2011kii markii ugu horreeyey ogaaska waa kii horteed yar la qabtay nin baa nagula jiri jiray guruub baan ku jiray wasaaraddii awqaafta uu balaloo qabtay yaa directeer ma laga dhigay ninkii maalin baan u garaacay wuxuu iga yidhi directeer baa layga dhigayoo iminka ciisanimadii waan iska yar dhigay hay soo wicinaya yardaaya intaan qoyaya buu nagu yidhi haddaan ninkaa daacad buu uu noo sheegayba sidii baan ku daynay ninkii macnaha ragga ciisuhu qadiyad ma leh waa caadhkoogii oon gurigooga idhaahno waan sheegaa dadna waxuma taraan ka wasiir laga dhigi anu horta aqalan dhisto handhargo maayina waxaan looga dhigay wasiirka adeeg inuu qabanayo dad inuu mas-uul ka yahay inuu u shaqaynayo maba ogaba inuu isagu dhargaya musku haysta waayahay waan ka gudbaynaa nin walba doqonnimadiisa meesha dhigto weeyaan umbaa lagu hubsan doonaa waxaan u gudbaynaa election kale kasoo socda dalka etoobiya isaguna bisha 21 juun electionkaasi siduu u dhici doonaa xaji cumar ibraahin adiga maaragtay aad specialist ugu ah arrimaha etoobiya bal noo faahfaahi sida uu electionkaas u dhici doono electionka etoobiya iyo ka jabuuti ka dhaha waa sawaasawa isku mid weliba ka jabuuti kambay baaba 2 week la sameeyaayo dadka jaad la siiya oo meelaha gaari raaraaca kuwa etoobiya warqadihii unbaa jawaan lagaga soo qaaday adisoba aqalaa la geeyo loogu qaybiyey mustafa cagjar iyo aadan faarax aqalon bay ku qaybiyeen odayadii iyo dhalinyarna way tirsadeen gidaarada warqad ku dhadhajisteen waxa jira maaha warqadda unbaa lagu soo qoranayaa waan badina baa la odhanaya election meel lagu riday wax ka shaqeey etoobiya weligeed egypt iyo etoobiya dimuqraadiyad ka dhacda taa jabuutiya dictatorkan ku ahayd ayaaba u ajanno way siduu dhici doonaa electionkaasi ma habka federaalka ayaa electionkaasi ka dhacaya mise waa habka regionka wuxuu ka socdo maxamedow hadda etoobiya way qasanta tigreegi gobolkii tigreegi waa la baabiyey dagaal buu ku jiraa gobolka oromadu election ma galayaan oo way caddeeyeen bu jabadaa ka dhex dagaalamaya gobolka loo leedaha bishanguul gubus suudaan baa dagaal iyo dhinacaya amxaarada iyo isku hayaan markaas etoobiya dagaal iyaaba qoomad la iskula jiraa adisoba iyo jigjiga iyuba food ka dhacaya marka wax kale oo jiri ma jiro 100,000 oo qof baa footay anaa badiya unbaa la odhanaya marka waan ka gudbaynaa wax faa'iido weyn oo laga hadlo oo sidaa ma jiro waa meel nin yacni dowladihii reer galbeedka yaabi la yaabay sanadii barbay dhaaftay electionkii waqtigu qaban lahaa 2020 October uu dhaafiyey dowladuhu ay dhahay election ma qaban si bila sharci meesha ku joogtaa Tigray province waad baabaysay marka isagiiba dambi loo haystaaba adiba dambi loo haystaa waayahay aad iyo aad baa u mahadsan tahay dhinaca samafalkaan galaynaa hadda samafal badan baad ka qabateen adiga iyo xaji cumar adiga iyo asxaabtaada city diaspora community la yiraahdo samafalkii halkuu socdaa maxaad qabateen imika ahaan aad iyo aad baad u mahadsan tahay intii samafalkaa ka qayb gashayna waad ku jirtay ilaah ka abaal mariyo
وأنا كوكو مهدنا إلى هنا كما بابيو مالت اللقاوين لقتني هذه رير كاغيو عروت هذه قرابة أنا إلى هنا دورو أنتي نلبعيس العكتا أو يوروب مريكان مالكستا دافا دونكا وانو عملينا يا إلى هنا كابال مريو أن واتن داخدي مركي قاعدي بلدقيش تاي waxaan ka sharagnay maxamed shiido boqol shaashi ka soo diray labada xagga aqalka ugaaska iyo warkiisa kolkii la soo gaabiyo boqol shantii taal isku jira please washore وقامي يمشي ولا مغلية ولا بغليا waxaan ka sharagnay ma nisoo ayna waan maasid ويا أوضاع أيوة عمر فري أوضاع كان داير محمد روبلي ومسؤولين تمقالة يا جاركا الراشنكا تقبلي تدك هو قايبين يويا حاج عمر أوائل يا كبدا مريم قال يا عيسى ستي ويبسوق يعني يسهل علمي صدح يا ستي بعدين ما عندنا قينا وليس بعينا سلايا سكر رسالة دكتي نوصل بالجال لا نيجي كمان مرة قالبي كاليفورنيا جوتي قبلها كده سواليات بعدين يصير بعينا كبدا مريم قالبي كاليفورنيا ويا وذركيسان وحن هلكن همبليو قلت يا مريم قالي وكبد ريحة دجالة وريح قالي ريحة دجالة هنا قالي جيري واحد دقنتي كاليفورنيا markii dagaalada dhaceen baabuur qaadatay magaalada wadaac gashay Soomaalidii $3,000 ayay Soomaalidii ka soo ururisay dumarkii Soomaalida ee lacagta soo bixiyay jazakallahu khayr gufdiyo bil aakhira baleenay waxayna ka dalbadeen inay lacagta raashin gasho dad bubuka ama dad barakacayaal la siiyo waa ka proofkiina waan sameynay gabadhaana waxaan leenahay Allah barakeeyay awlaadeeda anagu city diaspora صدق يا نورني صدق كون يصدق كون يا لح العقد بقول كونوا برانا ويل با جيبوتي كان موصل لها وشعب جيبوتي انا صوب عجي تضوا واحد يسكن نقطتين تيادي وصدق بقول يا بقول كافر بقول كونوا بر راشين بانجليني waxaan gaarsiinaa dadkii barakacayaashii magaaladii la gubay cadaytu ayaa andhoofo agagaarkeega guddiga ogaaska ee maaliyaduna track bay rareen anaguna track baan rarnay trackna waxaa raray guddiga ganacsatada ee magaalada Diridhaba 3 gaari ayaan maalin qura saarnay si fiican dadkii loo gaarsiiyey taana waxaan leenahay dadkii qaarabanka ka qayb galay aad iyo aad bay u mahadsan yihiin ilaahayna ka abaalmariyo aad iyo aadna waan ugu faraxsanahay wiilkaana waa wiilka maxamed gooshe baa la yidhaha waa wiilka baabuurka ka qaaday lacagta qaaday alaabta la dhameeyey guddi baa jira laakiin isagu waa inan yar firfircoon oo cadeyntii candhuubana tegey alaabtii qaadaya isagana waxaan leenahay ilaahay ku abaal mariyo jazakallah khayr guddiyo bil aakhira cimrigaaga Allah barakeeyo caafimaad iyo cimri dheer iyo reer caafimaad Allah ku siiyo aad iyo aadna farxad ay noo tahay anagoo qurbo joogna wixii aan ururnay uu tegey aagii dhibtu ka dhacaysay la gaadhsiiyey waa guul iyo sharaf deeqbixiyaashii nala baxshay ee na garab joogsaday far quri fool ma dhaqdo keligii waxba ma qaban anigu waan organise garaynaynaa annaku guddiga city diaspora waan organise garaynaynaa laakiin gabdho badan iyo wiilal badan oo barakaysan ayaa qarashka nala baxshay waana ku mahadsan yihiin ilaahayna ka abaal mariyo welina dhibaatada way taagan tahay dhibaatooyin dadkeena iyo dhulkeena ku habsatay aad bay u taagan tahay waxaa kaloo ku darsanayaa maxamedow arrimo way fada badan yihiin gruub kaloo jabuuti aa nala shaqeeya lacag bay ururiyeen lacagtay ururiyeen waan fikirno waxaan nidhi qaybtanna sidan dad jabuuti belbela
dad badan oo agooma dad buka haysta dad curyaanina haysta iyo dad odaya haysta iyo dad ilmo ama dad maskaxda wax ka qaba haysta oo nebara ayaan lacagtiina u qaybiyanay ururka qayb kaloo nala shaqayso dirdhaba joogtaa jira kuwii dirdhabana qayb bay ururiyeen qaybtiina sidaa oo kale meelo badan wax kaga qabanay wiilal badan iyo odayaal dhaawacii oo dirdhaba jooga waxbaan u qabanay wax badan intan uun maahine dhinacyo badan ayaan sidaa u ballaadhinay alxamdulilah baan leenahay ilaah baa mahadle marxaba waxaan ku weydiiyey su-aal baan ku weydiiyey samafalkaasi maxay madaxda reer jabuuti ee lacagtii dowladda xaday lacagtii waddanka gurtay maxay uga qaybgeli lahayn iyagu waxa weeyaan ragga ciisaba ma ahaba ilaahay baa ka dhaliyey laakiin ciise ma aha ninka ismaaciil la shaqaynaya maamulka dowladda ismaaciil ku jiray ciisanimadu ka tegey xaqa ilaahay ha tusaan leenahay haddii maanta baabuur dul maro oo curyaan noqdaan oo lugaha ka jabaan ayay ciise noqonayaan laakiin intay bugbugta ku hayaan ciisanimo way ka tegeen marka wax samafal iyaga ma niga soo gaadhay qoladaasi tuuginta ee jabuuti isku urursatay ragga dowladda jabuuti ismaaciil la shaqaynaya hadday saraakiil ciidamo tahay hadday tahay kuwo wasiiro oo sibila wasiir ku-xigeenno maayaro wax haba yaraatee aqaladoodaba askar baa ilaalisa anagu dee iskumaba khasaysiinba ganacsatada ayaan dad u dirnay ganacsatadiina waxay tidhi war annagu haddaan wax bixinno oo lana ogaado dee meeshan cadow ciise nacab baa joogo waa iyoje ilaahayna ciisu ka dhaliy haddana doqonnimadiisa cadowgiisa ciise unbuba u arkaa taas waa taan la yaabana waxa ciisa uu doqonnimada ugu arkaa cadow marka baqitaanka ilaahay laga baqayo way iska iloobeen oo waxay ka dhigan tahay marka ilaahay buu noqday inuu cumar gelina isaga ka baqaan marka waa ilaahay buu ka yahay jabuuti marka ilaahay abuuray iyaga way iloobeen bay ka dhigan tahay oo nin idiloo sheekha maxamedow aan kaa dhex gale nin idiloo sheekha oo imaamka masaajidka ismaaciil xeramuus ku yaalla tujinay labayka ismaaciil sawkin macdaar dhan ka yidhi gebigooga wada labaykada ma dad nool baad moodaysaa dadkan sawirka unbay weegiin dad noole waa wax wada dhintay oo wada xaar cuna weeyaan waxa meesha waxaan leenahay ilaahay ha soo hadeeyo waa dad ina cumar gelle uu ilaahay u noqday weeyaan reer jabuuti oo cabsoonaya oo maaragtay si looga baqin ilaahay uga baqaya ina cumar gelle waxaan leenahay dadweynaha reer jabuuti iyo dadka kalena daawanaya bana dhegeysanaya bana daawan doonaa xisbiga waa xisbiga soo raaca waa parti de la réforme et de la démocratie baa la yidhahdaa xisbigaasi annakaa samaynay xisbiga waxa weeyaan waa xisbi reform doonaya jabuuti inuu ku sameeyo az waxa qushaashka waddanka dhex fadhiya ciduu doona ahaado ayaan ka safeynaynaa waddanka hadduu ilaahay yiraahdo oon maaragtay waddan nadiifa oo cleana ayaan ka dhigi doonaa xisbiga ninkii maaragtay kusoo biirayo wuu furan yahay insha allah xisbigaasi بريو دو جوتي تجي دونا ماركتي إن شاء الله وانكسفين دينا قشاش كوين عمر جلوجو ريو يوحى وصفر دي إلهي سجى كنكتبه إن شاء الله هدي إلهي حاج عمر waxaan ku sii soconaynaa su'aalihiinii waan ku sii soconaynaa barnaamijka halkee buu socdaa iminka ahaan dagaalkii ma qaboobay wax heshiisa ma la soo wadaa cafartii heshiiskii shirkii lagu qabtay Addis Ababa ma ka soo qayb galeen oo heshiis ma rabaan siduu wax u socdaan aniga haddaad i weydiiso afar waxa weeyaan anfari mission bay leedahay missionka ay leedahay waxa weeyaan kii anfarta imika waxaa la hayaa 700 oo maxaabiista la ka qabto lagu hayaa adeegta andhuuba gaarkeega oo la keenay Shineele waxa ugu badan dhowr iyo 40 waa ciidamada Djibouti ka tagay oo jardaaran baa ku jiro booliis baa ku jiro military baa ku jiro dad shacab oo reer Djibouti ku jira dagaalkan ku jira Eritrea xuminta labaada dagaalka ku jira afarti Ethiopia deganay danaakiladii foolfool xumadeen madmadoobe wayba dhamaadeenba uraag iyo qoti iyo
dad dhulka ka shaqaysanay oo xamaal ah ay soo ururiyeen askar galiyeenay lacag u qoreen oo dagaalka galay marka anfartu rag qurbaan jooga Mareykanka iyo Belgiga jooga ayaa maamulaya dagaalka raggaana nabadgelyo ma rabaan waxay doonayaan inay ilaayaha dhagaala ciise allaayana yimaadiin markaan cadeyti aan dhuufa xoreynana dakhliya al-sibiic baan galaynaa oon ka xoreynayna ciise ay aaminsan inantan dhowaan ee dhakada waaweyn leh galoomada waaweyn leh Ismaaciil ku tahay raashinka tajooriyo waa looga qaadaa ragga hubka xerada ciidanka militariga Djibouti eerdaranka Djibouti ee tajooriyo hubka ayaa la yidhi waa la jabsaday oo laga qoray rag Djiboutiana ama dowlad Djibouti wanday ma hadal qaadi oo moodan hubba la naga xaday hubba la jabsaday way la ogyiin Ismaaciil Umar Geele wuxuuna raali kayn Djibouti kama dhaco laakiin ciise ma dhamaanay taariikh madowbad ku dhiman waana ku ognahay inay cadow ciise tahay intaan wax ka baxay waayahay heshiiskii halkuu ku dambeeyey heshiiskii lagu qabtay maxay ahayd Addis Ababa laga soo qayb galay Soomaalida afarta qowmiyado oo dhan ka soo qayb galeen laga hadlayay dagaaladan ka socda qowmiyadaha dhexdooda maxaa ku dambeeyey heshiiskaasi maxaa ka soo ifaa dagaalka shirkaasi shir wax ka jiraan ma aha maxamedow gabadh wasiirka nabad sugidda Itoobiya oo dabuuba naag dabuuba oo la yiraahdo wasiirka nabadgelyada Itoobiya yaa shirka horeba hawaas ugu qabatay 3 day kadibna anfartu weerar bay soo qaatay marka anfar hadday nabad rabto waa inay cadeyti aan dhufa ka baxdo waa inay iska tagaan gawaani iyo samariyo dhulkooga kala mile kadibna baadiyo iska socdaan oo la wada daaqa dhulka inta ay cadeyti aan dhufa garbaxaysa inta ciidamada dul keenayaan nabadgelyo ma jirto dowladda Itoobiyana waxay garab siinaysaa gardarro garab og ayay anfarta ku socotayo dowladda Itoobiya garab siinaysa nabadgelyadana waa afka baarkiisa shalay BBC-da sheegaysa wax anigu kama qabo rajo fiican kama qabo inay hirgalayso waxay marxaba afarka Itoobiya taasan ku dhaafaynaa waxaan soo noqonaynaa haddaba xukuumaddiina Cumar ka soo dhisay Djibouti xukuumad buu soo dhisay mar dhaweyd wiigii hor dhaweyd in Cumar Geele wasiiro u magacaabay kuwa jadiida wax jadiida afar buu kusoo daray kuwii horan baa meesha sii jooga xukuumaddaasi maxay iska bedeli doontaa maxay kusoo biiri doontaa dadka iyo waddankaba barigaan yarin maxamed cali kaley ma yakhalli meeratu Soomaali oran jirin saxa markaa Ismaaciil Umar Geele dowlad soo dhisay waan ku qoslay Ismaaciil Umar Geele wax iska bedeleen waan ku qoslay ra'iisul wasaarahan bedelaynaayo wasiirka arrimaha gudaha bedelaynaayo wasiirka arrimaha dibadda bedelaynaayo bobo suuqa la gelinayay wasiirro cusub baa la sameynay wuxuu Ismaaciil yiri aniga waxay soo celiyay dhalinyarta yaryar reer Djibouti aniguna ayaan baan idhi maadaama sidaa tiri ciyaalka 30 jirka ee wada mutacalimiinta ee doctoraaga iyo higher education kale ma ka dhigay wasiiro meesha ma wax isbedel mu sameey faction way bullshit xera kubadana iniga daraadin baan u soo noqdo waa iniga ay soo celiyo mukata qalusa kaanlo maxamuud ali Ilyas Musada waale waxaan meesha wada joogay dhowr iyo 10 sano joogo mukata qalusu dhalinyar yar keeno ma isbedel waa ka sugaysaa Ismaaciil war wax jira ma waxay sir weeyaan xaqayga waayahay marxaba uma malaynayna wax bedeli doonaan waa tuugintii unbaa meesha sii joogi doonto maaragtay si lacagaysan doontaa dadkuna gaajoon bay kusii dhiman doonaan ninkaas sawirkaada arkaysid waa nin uu adeer u yahay oo Canada joogayay oo la yiraahdo Yaasiin Cawleed oo Jibclean lagu magacaabo ninkaasi baryo dhaweyd wuxuu sameeyey dagaal buu galay nin buu dilay uu litir ku kala jabiyey maxkamadda markii la geeyena naagtii jiishka ayd buu caayay gabood baa la geeyey dabadeedna waa la sii daayey ma waxaad oran kartaa wixii ka agdhow in Cumar Geele amba isku qabiil yihiin lama xidho iyaga oo lama geeyo xabsi oo lama dhigo sida Fuaad Saliid Duus wax la yiraahdo
محمدو wax badan baan anu ogahay raggani reerka siiba jilibka lafta Ismaaciil Umar Geele xataa dad ay guriga ka kireysteen ayay guriyihii kirada u jeedeen ay yidhaahdeen soo ashkatay maxkamaddii markii la tagana warqadoogii la laalaabay marka meel sharci ka jira maaha boqortooyo baa meesha ka jirta boqortooyadana waa reerka reebtigaya lafta bafur laba leeyahay ayaa dadka gurada kaga kaadiya dastuur iyo sharcina Ismaaciil baaba baabiye wadanka sharci ma sharci baa ka jira Ismaaciil ba ma joogi lahaa hadduu sharci jiro oo dastuurkii wadanka jiro Ismaaciil 10 sano ka hor buu tutermi markuu dhamaysto socon lahaa ma sharci baa jira kolka waa bilaa sharci waa duub waxa weeyaan xuquuq ma jirto shacab Jabuuti xuquuq leh ma jirto midnimo Jabuuti ma jirto waa dulun iyo dulnaag joog weeyaan waayahay ugu dambaystii gabagabihii barnaamijkan joognaa xaaji cumar maxaad kusoo xidhi oo kusoo gabagabayn baaq u diraysaa dadka somaliland degan kuwa etoobiya degan iyo kuwa jabuutiba degan kuwa Jabuuti baan horta la hadlayaa marxaba ku soco 1965 kii xambulin markii la fadhiistay xasan guuleed iyo maxamuud xarbi markii loo fadhiistay cadaalad xumadii odayadii fadhiistay maalinta ay sameeyeen yaa ilaa maanta Jabuuti ka jirta maxamuud xarbi baa noqon lahaa madaxweynaha alku xasan guuleed ka noqday laakiin odayadii ciisuum way ka eedeen maxamuud xarbi ee xashadii ay maalintaas sameeyeen yaa ilaa maanta ka jirta wadanka Jabuuti maantana laba reer ayaa kolba dhinac loo jiidaa waa wiil muuse iyo furlabe maalintiina laba oday ayaa diiday oday Sacad Muuse oday yoon Muuse baa yiri war xasan guuleed war ina kana mutaalima u daayo hadduu doonayo dibiteegiisa wixiisa iska ahaado waxay ku yiraahdeen xasan guuleed waa elay waa uradkii Ciise furlabo uradkii maalin waa kii saddexaad walaaldoon baa malaha ka weynaa iyaga kolka waxay yidhaahdeen waxa weeyaan lixdii oday Ciise dhalay uradkii uu elay ka soo jeeda xasan guuleed qabiil bay geliyeen tacliinna ma eegin maskax ma eegin aqli ma eegin cadaalad xumadii maalintaa dhacday iyaan ilaa maanta reer Jabuuti cudurkeegii haystaa banafidkeegiina haystaa marka waxaan leeyahay reerka Cabdiraxmaan elay haba kaba dhig ba uradkii Ciise laakiin maanta ciisanimadii ma ogol yihiin ay ku soo fuuleen meesha ma ogola midnimadii Ciise ma ogol yihiin ma ogola maalintii xaqdarrada lagu siiyo kursiga xasan guuleed war uradkii Ciise weeyaan daayo elaya lagu siiyey maanta eleyanimadiiba ma ogola ciisanimadiina ma ogola digaag buu iska dhigay diig meel kale ka soo dhacay oo xoog weyn aniga uun halay caabudo iyo jist bay la baxeen reer Jabuuti oo dulun baani haysta waxaana waa wax hore la sameeyey dulunkaayoo iska aragtiin odayadii Ciisaana maalintaa dullinimadii la saaray ayay reeracma wada yihiin odaga Ciise qaladkii saxda uu kala sheegi jiray xeerka Ciise odayadii dhig cadaalad bay ahaayeen dawladii lacag ma siinayn jaadna ma siinayn xoolo way cunayeen xaqay ku dhawaaqayeen odayadii Ciise ee xaqa ku dhawaaqay ma jiraan maanta waxaan ilaahay ka rajaynaa dumarka Ciise inay xaqa ku dhawaaqaan oo diidaan odayadoodii iyo dulunka iyo jistiba ka bax kuwaas waa baaqi aad Jabuuti u diraysay waxaa baaqi Somaliland iyo waxa ku haray Ethiopia gabagabihii baan joognaa hadii toole maxaad iyagana raacin baaqa Somaliland ma u dirayaa Somaliland odayadeeda iyo dhalinyarta iyo mutaalimiinta iyo waxgaradka xaqiina Hargeysa haysata 25 malyan ayaa taksiga iyo cashuuraha saylac ka soo baxa saylac magaalada saylacna biyo fiicanna ma leh tacliin iskuul ma leh caafimaad fiican ma leh wadooyin fiican ma leh lacagtana Hargeysa lagu dhisaa haddaa isku duubantiin xaqiina waad helaysi isku duubni yeesha
wadooyinka saylac ilaa jabuuti maraya halinii dhiso lacagtiina la qaadanaya hargeysa lagu dhisay waa xaquuqdiini 25 malyan baa sanadka laga kolakti karaysta cashuurta saylac iyo ashcad waxaa kii u tagay yidhahdeen war dowladda xaqin adu barjaagi ma rabta aan ku sino xoogaa lacaga loo laaba odaygii iyo siyaasigiiba iyagoo kala cararayay ku noqdaan meeshay ka yimaadeen waar unity yeesha ragga geesh aadan bile cabdi saciid baaye iyo inta kale baarlamanka tagaysana xuquuqdanaga waa inaad soo ridaan food baa iman doona haddaan nooshiin haddaad dhimatiin dee ilaah baa nila xisaabtami haddaan nooshiise waa nila xisaabtami doonaa waxqabad baana nigula xisaabtamayna waxaad tarteen eed hargeysa ka soo qaateen ee dadkiina u keenteen waa niga sugaynaa xaqii ummadda inaad soo ridaan caafimaadka tacliinta aad waxqabad la timaadiin waa ni sugaynaa dhakhtarkii qurba joogtu dhistay ee geerisa ku yaal iyo kii labada saylac ku yaal xariiran faaruq bay yihiin sariire ma yaalin qalab ma yaal dawa ma taal dadka waa la jiifiyaa waa iska dhintaano xabad irbadi ma taal inaad dhakhtarka hagaajisiin ood soo noolaysiin ood qalab keentiin ayaa niga sugayaa dardaarankaygu waa kaa xagga etoobiya noqotay xagga etoobiya odayada gandaha iyo ogaaski unbay isu eegaan odayada gandi iyo ogaaskina wayba dhaandhaameenoo dhinacay u kacaan bayba garan laayihin xaggan jabuuti xaggan adisoba xaggan somaliland ninbaa gabyo wuxuu yidhi xaggan gebi xaggan igeer xaggan gaalada hadhuur kale xaggeen geela geynaa odayadii taabay taagan yihin dhalinyarta waxaan ku weydiiyey kaa dhexgalo xaji cumar ibraahim haddii ogaaska ay doorteen ciisuhu haddii uu shaqadiisa kasoo bixi waayo iyo 40 oday hoos fadhiya haddii shaqadooda kasoo bixi waayaan miyaana la bedeli karin ogaaska iyo 40 kaaba ogaaska waxaa bedeli kara gendaha iyo 40 mayne 140 weeyaan ogaaska waxaa qabta haddii ogaasku xumaado ama khaladaad uu galo dastuurka sharci bedilaa jira laakiin ogaaskeenayra maanta ogaas mustafe wax qaladoon maanta ku hayni ma jiro oo gafku dad ka galay ma jirto laakiin gandihii baa gaf ka galay dadka talada ogaaskana waxaa la yidhahdaa ogaasku uu guddoomiyaaye ma gooyo xeerka intay gooyaan oda ganduhu intay xeerka gooyaan ogaasku dhex fadhiyo ayuu yidhaahdaa sidaaba anii la quman hebel arrintuu yidhi baan ku raacnay tibaa laysku wada raacaa odayada gandahe ogaas xasan la shaqaynay anigu waan soo gaadhay markay shir galaan ogaasku wuu dhegaystaa 12 oday way hadlaan kolka uu ugu dambaysu hadlo iyuu yidhaa hebel iyo hebel saasay yidhahdeen aniga waxay ila eg tahay arrinkooga inaan raaco kolkaaba dhinaca la wada raacay hadduu go-aan adag yahay iyo hadduu ku dhib yar yahayba go-aan adag baa la qaadan jiray maanta dhinacii gendaha odayaal baa amashtoriyay noqdeen markii ogaaska la qabtay odayaal baadiyaa lagu soo daray kolkii dambe waa la fikro waxa la yidhi waar odayaal baadiye ka imanaya dhaqaalo uma hayno odaya magaalada degan oo reerkii matela oo iska shaqaysta halanoo soo raadiyaa la yidhi odayada magaaladuna laablaabkoogaa badan daacad maaha odayada baadiyahana sidaabaa lagu tirtiray marka ciisu inuu isku laamo uu baadiyihii ku noqdo ayaa loo baahan yahay sababtoo nin magaalo cadaalad ma sameeyo dantiisa ayaa kaga weyn ninka dowladda haya xaq uma sheegi karo dan buu ka leeyahay berri taasaa nagu dhacday dhibtu halkaabay ka timid waayahay marxaba iyaga laftoodaba waxay u baahan yahin reform in lagu sameeyo ogaaskii iyo waxa hoos fadhiyo dhanba xisbiga insha allah xisbiga reformiga dimuqraadiga ayaa gebigoogaba reform ku samayn doonaa hadduu ilaahay raado reform ku samayn doonaa barnaamijkeennii maanta intaasaan kusoo gabagabaynaynaa xaji cumar aad iyo aad baad u mahadsan tahay inta aad waktigaaga qaaligaana siisay dadweynaha sharafta lena daawanaya meel kastay joogaanba iyaguna way salaaman yihiin aad iyo aad bay iyaguna u mahadsan yihiin
inta ku kilmi doono hawada mar labaad iyo mar saddexaad xaaji cumar waad mahadsan tahay adigana waad mahadsantay maxamed aad iyo aadna gargaarka waxaan kaga baxayaa gargaarka aan dirnay ma cascasa dadkeenna baahideeda iyo dhibtooda way fara badan tahay hadda waxaa lai soo sheegaya wiil yar oo hadha gaala keliyuhu fadhiisteen walaalkiibaa keliyaha u saaraya lacag baa loo gurayaa dadweynaha halkan adeecadda dhegaysanaya meel kastuu jooga adduunkaa joogeen qaaraan yar oo wiilkaa walaalkii yaa kelidii u saaray dhakhtarkaa la jiibinaya waa lacag meesha ku sugayaan waa lacag hadda waxaa la ururiya lacag 400 oo kun oo bira waxaa la rabaa 150 kala ilaa 500 ilaa 600 oo bir oo yaa la rabaa oo kun turkigana la geynayaa arrinkaasaa ugu dambeeya oo shalay la ii sheegay sidii aan awalba qaaraanka u guraynay gargaarkeennuna weligeen intaan noole waan wadaynaa maxamed okaar t v iyo inta dhegaysanaysa maalin wanaagsan habeen wanaagsan waan salaamayaa insha allah waanan ogahay dad samaha jecel oo gargaarka jecel oo wiilkaa yarra u gurmanaya iyaan rajaynayaa wasalaamu calaykum insha allah ilaahay caafiyo gargaarka ka soo qayb gala ayaan leenahay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu